waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha qaaliga haddii ilaa raado waxaan ka hadlaynaa barnaamijyadeena caafimaadka iyo lagjaradeyna caafimaadka indhaha ku saabsan maanta haddii ilaa raado waxaan ka hadlaynaa lagjarkeena saddexaad ee maadada ocular anatomy and physiology lagjaradii hore waxaan kaga soo hadalnay structureka ishaan kaga soo hadalnay iyo leeyaradeeda sidoo kale waxaan kasoo hadalnay orbitalka kasoo hadalnay godka ishaan kasoo hadalnay inta meela u furan yahay inta walliska uu leeyahay sidoo kale masaliska maro lafaha oo ka kooban yahay guud ahaan videoga horaan kaga soo hadalnay videogan waxaa ku xiga masaliska indhaha ayaan ka hadlaynaa masaliska labaa loo kala qaada marka guud ahaan labaa loo kala qaada waa extraocular muscle iyo intraocular muscle extra waa banaanka masaliska banaanka isha ku yaala iyo masaliska gudaha isha ku yaala markii laga hadlayo masaliskani qofku wuxuu maamulaa qaybtani oo wuxuu maamulaa extraocularka ayuu qofka maamulaa laakiin qaybta dambe intraocular muscleska qofka waa involuntary kaliyihiin waa qofka ma maamulo haddaa ka bilaawno extraocular muscleska wuxuu ka kooban yahay 6 muscle 6 muscle waa extraocular muscleska waa 6 muscle si fudud haddaa 6 muscle u sheegno 4 ka mid waa rectus halka 2 ka midna inuu yahay oblique 2 oblique iyo 4 rectus superior rectuska muscleska ugu horeeya qaybta ugu horeysan ka hadlayna waa superior rectus dhirir ahaan wuxuu gaaraa waa 7.7 mm waa longest muscle waa extraocular muscleska waa muscleka ugu dheer waa wuxuuna gaaraa 7.7 mm ayuu gaaraa originka intoo kasoo baxaa marka wuxuu kasoo baxaa meel la dhahaa annulus of zinc ayuu kasoo baxaa wuxuuna galaa qaybta hore ee isha superior surface qaybta hore ee isha oona limbiska ayuu galaa yaa innervation yaa quudiya masalkaani waxaa quudiya nerve loo yaqaano oculomotor nerve sidoo kale shaqada uu noo qabto maxaa waa elevation isha inaa kor u qaadno ama waxaa dhihi karta upward aa dhihi karta elevation sidoo kale encephalotorsion macnaha encephalotorsion waa shaqada primary actionka ay qabtaan oblique muscleska encephalotorsion oo isha gudaha qalooc oo gudaha oo mataqaana in la sameeyo qaloocaas gudaha xataa qaab waxaa loo sameynaa toosan loo sameynaa qaab like oblique ahaana loo sameynaa obligan shaqadooda iyo qaabka u sameysmayana waan kaga hadlaynaa duulara ugu dambeyntii wuxuu sameynaa adduction waxaa waaye shaqadiisa saddexaad ee masalkan uu qabto waa adduction waxaa waaye isha inuu qaybta gudaha uu soo geliyo masalka koowaad waa superior rectus masalka labaad waxaa loo yaqaana inferior rectuska asiga dhirir ahaan wuxuu gaaraa 6.5 mm asiga waa masalka labaad ee ugu dheer masalka saddexaad ee ugu dheer waxaa ka dheer lateral rectus ka dheer origin ahaan originkiisa waa same origin extraocular muscleska afarta rectuska same origin oo annulus of zinc ay kasoo wada baxaan intay galaan marka waxay galaan meel masalkan asiga wuxuu galaa inferior surface waa qaybta hoose ee isha ayuu galaa oo limbiska ayuuna soo galaa waxaa quudiya oculomotor nerve shaqadiisa maxaa marka depression hoos inaa ishu soo jiido ama hoos markaa fiirinayno inaa isticmaalno sidoo kale extracyclotorsion waa banaanka waa extracyclotorsion isha inoo qaab oblique ahaan inuu banaanka ugu bixiyo adduction waxaa waaye qofka inuu banaanka isha u bixiyo adduction markay ay tahay laba da markay tahay waxaa waaye gudaha inay soo gasho markay tahay a iyo b iyo d markay tahayna waa banaanka waxaan ka hadalnay laba masal oo inferior superior ka hadalnay waxaa galayna medialka waa masalka ugu yar waa the shortest muscle of extraocular muscleska wuxuu gaaraa asiga 4 rectuska dhahe wuxuu gaaraa 5.5 mm ayuu gaaraa intoo kasoo baxa same origin annulus of zinc ayuu kasoo baxa wuxuuna galaa meel oo medialka qaybta oo medialka oo sanka soo xiga ayuu galaa oo limbiska ayuu galaa iyo waxaa quudiyo oculomotor nerve shaqadiisa hal shaqo bis ayuu qabtaa kuwa hadaa 3 shaqo ayay qabanayaan kan laakiin hal shaqo bis ayuu qabtaa wuxuu qabtaa adduction waxaa waaye isha in gudaha qaybta sanka in la soo geliyo lateral rectus asiga dhirir ahaan waxaa waaye 6.9 waa masalka labaad ee extraocular muscleka ugu dheer waa originkiisa meesha kasoo baxo waxaa waaye annulus of zinc lahaa insertionkiisa meesha uu galaayana waa lateral surface qaybta bidix isha oo limbiska ayuu galaa limbiska waa kasoo hadalnay structureka isha markaan kaga soo hadalnayna meesha ku yaalo
meesha qaabka u yaala waan kaga soo hadalnay. Limbiska waa corneada iyo scleraha meesha u dhaxaysa waxaa loo yaqaanaa limbiska. Marka meeshaas ayay galayaan. waxaa quudiyo abducent nerve. Abducent nerve waa neerfaha neerfayaasha cranial nerveska 12 cranial nerveska waa kasoo hadalnay. 12 cranial nerveska extraocular muscleska oo for rectuska waa neerfaha kaliya ee quudiyo lateral rectuska. kuwa kale waxaa quudiyo oculomotor nerve. sidoo kale shaqadiisa hal shaqo bas ayuu qabtaa oo adduction, isha inuu banaanka u bixiyo ama qaybta oo dhegta agteeda inuu aado qofka. oblique waxaa waa oblique tusaale ahaan haddaa idin siiyo saana kasoo hadlayna. inta waxaa waa superior kor waa, inta waa inferior hoos ah, inta waa medial, halkaana uu yahay lateral. sooma waxaa jira marka oblique waxaa lahaa saa markay tahay haddii inta uu yahay waxaa waa superior oblique, inta haduu yahay waa superior oblique, inta haduu yahay waa inferior oblique. qaybtan kale hadduu noqona waxaa waa superior oblique, qaybtana waa inferior oblique. marka oblique waxaa lahaa waa xagal toosan ma aha, waa xagal oo mataqaana oo aan toosnayn oo saan camal u yaala. marka oblique kuwaasaa la dhahaa. superior oblique marka originkiisa intuu kasoo baxaa, originkiisa wuxuu kasoo baxaa sphenoid bone. sphenoid bone waa kasoo hadalnay, waa 7 laf mid kamid orbitalka laf kamid waa meeshaas ayuu kasoo baxaa. wuxuuna galaa insertionkiisa wuxuu galaa posterior surface qaybta dambe, posterior superior qaybta dambe oo qaybta hore ee qaybteeda dambe ayuu galaa. oona lateral surface qaybta waxay soo xigtaa qaybtan oo lateral oo banaanka dhinacan oo dhankeeda soo xigta ayay xigtaa. waxaa quudiyo trochlear nerve, neerfaha trochlea. trochlea waa neerfaha afraad waa cranial nerveska. markii laga hadlay kan koowaad waa kan labaad waa optic nerve waa kan koowaad waa si had u kala xigaan ma xasuusta, laakiin waa mataqaana abducent optic nerve waa trochlear nerve, trigeminal nerve, abducent nerve, saasay u kala xigaan ilaa 12 nerve. sidoo kale actionska shaqada uu qabanayo waa encephalotorsion. sidoo kale depression, isha inuu gudaha usoo celiyo. shaqadiisa primaryga oo koobaad si haddaan soo sheegnay waa encephalotorsion, waa isha inuu gudaha soo geliyo. gudaha markuu soo gelinayan gudaha si toosan usoo gelinaya oo sida medialka oo wuxuu u bixinaa qaab oo kor ayuu aadinaa. sidoo kale adduction, depression isha inuu gudaha soo aadiyo. sidoo kale abduction inuu banaanka u bixiyo. intaas shaqo ayuu qabanaa superior oblique. waxaa kaloo jiro inferior oblique. inferior oblique asiga originkiisa waa maxillary bone. maxillary bone waa 7 laf oo boneska oo orbitalka laf kamid waa. wuxuu galaa meesha uu galaa inferior oblique waxaa loo yaqaana posterior inferior oo lateral surface ayuu galaa. shaqada uu qabanayo waxaan ka ilaabay innervationka. waxaa quudiya innervationka asiga oculomotor nerve. oculomotor nerve neerfaha saddexaad ee isha ayaa quudiya. shaqadiisa maxaa marka exocclusion, isha inuu gudaha qaybta banaanka inuu usoo bixiyo, elevation kor inuu isha u qaado, iyo abduction isha inuu banaanka u bixiyo. hadda waxaa kasoo baxnay extraocular muscleska ay kasoo baxeen 6 xabo. waxaa galaynaa intraocular muscleska. intraocular muscleska asiga wuxuu ka kooban yahay 3 muscle ayuu ka kooban yahay. 2 kamid waxay ku jiraan pupilka, hal kamid uu yahay ciliary body ama ciliary body ku jira. midmida ugu hadlayna haduu ilaarada shaqada ay qabtaan iyo neerfaha quudiyo. kan koowaad haddaan ka bilaawno waa sphincter pupillae sphincter pupillae muscle. sphincter pupillae muscle asiga shaqada uu qabto waxaa waa pupil construction. pupil waxaa waa qaybtan oo iftiinka controlsho, inuu mataqaana contraction inuu ku sameeyo, inuu isku soo aruuriyo waxaa loo yaqaanaa pupil contraction. yaa quudiya marka waxaa innervation oculomotor nerve, neerfaha saddexaad ayaa quudiya. sidoo kale dilator pupillae muscle asiga wuxuu ku jiraa pupilka ayuu ku jiraa. shaqadiisana waxaa pupil dilation, pupilka inuu kala furo. kii hadda wuxuu pupilka inuu isku keeno, kana waxaa pupilka inuu kala furo. waxaa quudiya oculomotor nerve. midka ugu dambeeya ciliary muscle wuxuu ku jiraa ciliary body.
ciliary muscle shaqadiisa waa lensiga ayuu wuxuu ku sameeyaa contraction. Lensiga ayuu isku keenaa. Lensiga waxaa waaye meesha dadka dhahan meesha oo mataqaana qaliinka indhaha loogu sameeyo dadka oo indhaha cadaadan waxaa loo yaqaanaa lensiga. Lensigaasi muhiim waaye sida corneada isha ay muhiim ugu tahay oo qaybta muhiim u tahay lensiga muhiim u tahay oo wuxuu ka qayb qaataa opticalka oo qofka si fiican inuu wax u arko. Marka iftiinka isha soo galo si retinaha toos marka u tagaa iftiinkaas oo la controlayo lensiga ka qayb qaadana. marka waana processkaasi oo contraction iyo dilation la sameynaa waxaa loo yaqaan accommodation. waxaa quudiyo innervation, waxaa siiya oculomotor nerve ayaa quudiyo. guud ahaan intaan kusoo gabagabeynayna hadduu ilaaro extraocular intraocular muscleska. waa idinkaga mahadcelinaa daawashada video. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.